dowladda Turkiga ayaa waxay sheegtay inay ka qayb qaadan doonto sidii loo dhameyn lahaa xiisadda ka dhex taagan dalalka Carabta sida uu ku soo warramay wariyaheena Cabdicaziz Cabdullaahi Riyali. dowladda Turkiga ayaa si cad ugu dhawaaqday inay garwadeen ka noqonayso wada xaajood xoogan oo lagu joojiyo xiisadda ka dhalatay dalalka Carabta ee xiriirka lagu jiray Qatar. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Marfis Kabizoglu ayaa sheegay inay riixayaan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda u dhaxaysa dalalka Carabta ee gaartay meel aad u xun. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga in Qatar ay diyaar u tahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkii Carabta ay la lahayd dib loo soo celiyo ayadoo maraysa mowqif yahanaan siyaasadeed. wadahadallada ayaa waxay ka dhacayaan dalka Kuwait waxa uuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda inuu gacan ka geysan doono Sheikh Sabah Khalid al-Sabah Kuwait. xasarada ka dhalatay in xiriirka ay u jiraan Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Masar Doha ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalal fara badan oo Islaam ah kuwaas oo ay qayb ka yihiin dalalka Yemen, Ciraaq, Soomaaliya, Liibiya, Bahrain, Kuwait, Iiraan iyo kuwa kale. haddii Turkiga ay ku guuleysato ayadoo Kuwait ka shaqeysa inay mar kale dib u soo celiso xiriirkii Doha iyo dalalka kale ee Carabta waxay noqon doontaa guul lama filaan ah oo Turkigu uu gaaray.